Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, this is your teacher Adam, and we're still doing the verb to have. I didn't record a lesson the last few days because I got sick. I got some common cold, so I couldn't record a lesson. I'm sorry about that. Pray for me. I'm still having the cold. Pray for me that my situation becomes better. أرضي شرفت بدن خلاه يكسدوا هذا وعشر كيس سجالي لواتنات أو مع الآدن وعولي حكوا كرنا the verb to have إن معلومة دور معلومات من عشر هذا صوت دوبن ويرحنوا سدي حقها هرقب بايقور دعوة هرقب بسنا ولي حقها ويردم بيسو يردعية إن شاء الله إن عشر كان قد أقول له ولي حكوا كرنا the verb to have وحصل لي قلنا قيبتي النيجاتيف كا قيبت النيجاتيف كا negative waxa weeye maxaan ku diidmo oo soo dhigana 10ka 8 baaha 10ka 9 waxaan ku dhiganaa wax la yiraahdo interrogative waxaan ku soo dhiganay the verb to be. Interrogative waa su'aal, marka jumlada caadi ah see looga dhigi karaa su'aal looga dhigi karaa marka aan numarano the verb to have. Marka 10ka aan guda galno 10ka caaw koobnaan doon hadda la yiraahdo I have a car and a house. Jumlada waan soo dhiganay marar badan waan soo dhiganay 10 aan ku soo dhiganay I have a car and a house. I have a car and a house. waxaan leeyahay I have a car and a house. waxaan leeyahay gaari iyo guri. waxaan leeyahay gaari iyo guri. I have a car and a house. marka qaybka looga dhigayo su'aal looga dhigayo waxa weeye iyagoo dhan waxaa laga hormarinayaa do ama does. I, you, we, they waxaa laga hormarinayaa do. He iyo she waxaa laga hormarinayaa does. marka sida negative aan kusoo maray and su'aalaha dhan waxa la isticmaalayaa have baa la isticmaalayaa oo he iyo she marka caadi yihiin jumlad caadi yihiin has bay qadanayaan, laakiin marka su'aal loo rogo su'aal laga dhigo and has lama isticmaalayo waxa la isticmaalayaa have and waxaan lagu bilaabayaa does baa lagu bilaabayaa kuwa kale laakiin do baa lagu bilaabayaa have ka laakiin way ka wada sameeyeen. marka 10ka aan waxaan ku raacay dhamaystiro I have a car and a house. waxaan leeyahay gaari iyo guri. Do I have a car and a house? Do I have a car and a house? marka xagga horan baa looga daraya waxba la isma weydaarinayo xagga horan baa looga daraya. Do I have a car and a house? miyaan leeyahay gaari iyo guri. miyaan leeyahay gaari iyo guri. Do I have a car and a house? You have 3 brothers. You have 3 brothers. You have 3 brothers. adu waxaad leedahay 3 walaalo ah. adu waxaad leedahay 3 walaalo ah. marka brothers waa walaalahaaga inamada ah ama walaalaha wiilasha ah. marka walaalaha maxaan ku raadayay in hablaha ah waa sisters. marka 3 sisters waa 3 maxaan ku raadayay sister waa walaasha, brother oo walaalka. saawad la socotaan. You have 3 brothers. adu waxaad leedahay 3 walaalaad leedahay. Do you have 3 brothers? Do you have 3 brothers? marka su'aalka maxaan ku raadayay calaamada ma jirto and iyaguna waxay ku dhamaanayaan calaamada su'aal. marka su'aasha waxay ku dhamaataa calaamatu su'aal bay ku dhamaadaan and jumlada caadiga ah aan su'aasha ahayna waxay ku dhamaataa ama kuwa xitaa diidmada ah waxay ku dhamaadaan full stop ama jokes bay ku dhamaadaan. Do you have 3 brothers? adu miyaad leedahay 3 walaalo ah. marka intonation waxa la yiraahdaa jira oo codka kor baa loo qaadaya marka su'aal la weydiinayo Englishka. Do you have 3 brothers? marka tan waa sentence jumlad caadi ah way siman tahay tan laakiin xogaha inta dambe kor baa loo qaadaya. You have 3 brothers. Do you have 3 brothers? Do you have 3 brothers? miyaad leedahay 3 walaalo ah. We have a big house. We have a big house. annagu waxaan leenahay guri weyn. Big house. guri house waa guri, big waa weyn. Big house. We have a big house. waxaanu leenahay guri weyn. Do we have a big house? Do we have a big house? Do we have a big house? miyaanu leenahay guri weyn. miyaanu leenahay guri weyn. They have good character. Character waan soo dhiganay waa dabci ama dabeecad. Good character waa dabci wanaagsan. They have good character. They have good character. iyagu waxay leeyihiin dabci wanaagsan bay leeyihiin. Do they have good character? Do they have good character? Do they have good character? iyagu miyay leeyihiin dabci wanaagsan. He has many shops. He has many shops. isagu wuxuu leeyahay dukaamo fara badan. su'aal marka laga dhigayo does baa laga hormariyaa. He iyo she waxa laga hormariyaa does. Does he have many shops? Does he have many shops? Does he have many shops?
isagu wuxuu leeyahay dukaamo fara badan miyuu isagu leeyahay dukaamo fara badan does he have many shops he have baa la isticmaalayaa waayo markii su-aal laga dhigay iyagoo dhan waxaa la isticmaalaya have oo has su-aasha looma isticmaalo does he have many shops miyuu leeyahay isagu dukaamo fara badan she has a caring uncle iyadu waxay leedahay adeer daryeelis badan adeer wax daryeela oo iyada daryeela ayay leedahay she has a caring uncle iyadu waxay leedahay adeer wax daryeela ama daryeelis badan she has a caring uncle does she have a caring uncle iyadu miyay leedahay adeer daryeelis badan oo iyada dabcan daryeela miyay leedahay does she have a caring uncle miyay iyadu leedahay adeer wax daryeela I have a car in a house do I have a car in a house you have 3 brothers do you have 3 brothers we have a big house do we have a big house they have good character do they have good character he has many shops does he have many shops she has a caring uncle does he have a caring uncle and dear students and thank you very much for listening and for watching this video and I really appreciate it please share it with others subscribe and like and share it with others marka walaalaha waxaan leeyahay waad ku mahadsantiin daawashada aad videoga daawateen and subscribe ku sameeya maxaan ku dhahday like gareeya ardayda maxaan kula Englishka dananaysa la wadaaga haddii la yiraahdo and intaban leeyahay and we're going to end the lesson there dear brothers and sisters dear students I leave you with assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh till next time I leave you saying bye bye